yaa dastuurka u ansixi doona Aadan Madoobe iyo sidoo kale guddoonka golaha aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ma ciidankii ilaalada gaarka u ahaa madaxweynaha gudoomiyaha golaha shacabka iyo kan aqalka sare iyo kuwa ilaalada madaxtooyada miyay keesan doonaan fadhiyada su'aalahaasi oo dhan waxa horay u weydiiyay madaxweynaha iyo guud ahaanba guddoonka golaha shacabka iyo kan aqalka sare xildhibaanada mucaaradka ah ee ku sugan gudaha caasimadda magaalooyinka Garowe Kismaayo Nairobi iyo Muqdisho kulamo gaargaar ah ayaa ka socda ra'iisul wasaarayaashii hore ee mucaaradka ku jira gaar ahaan golaha mustaqbalka ku jira madaxweynayaal hore madaxda Jubbaland iyo Puntland waxa ay dhiirigeliyeen dhammaan xildhibaanadii sida adag uga soo horjeestay arrimaha dastuurka wararkii ugu dambeeyay ayaan halkan idinku soo gudbinayaa saaxiibayaal soo dhawaada haddii ay tahay markay kugu horeysay aad soo booqato nagu soo biir saaxiibada la sii wadaag muuqaalkan meel dheer nala gaarsiiya si aad u heshaan wararka degdega ah ayaan halkan ku baahino mar kale soo dhawaada saaxiibayaal daqiiqada ka hor waxaa fariimo loo diray xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya kuwooda garab taagan Villa Soomaaliya iyo sidoo kale guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya iyadoona in badan oo kamid ah warqadan ay si toos ah ugu socotay dhammaan xildhibaanadu waxaana la tilmaamay in maalinta berita uu jiro kulan degdeg ah oo waliba kii golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya arbaco taariikhdu tahay 4 bisha 3 2026 waxaa jira kulanka labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya ajandaha dib u eegista dastuurka marxaladda 3 1 ansixinta cutubka 4 ilaa cutubka 13 ee dastuurka goobtu waa Villa Hargeysa waqtigana waa 3 saac subaxnimo mahadsanideen ayaa lagu soo koobay warqadan iyada oo waliba in badan oo kamid ah si gaar ah uga hadlaysay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya haddaba 3 fadhi wax ka badan oo la soo dhaafay oo ay wada lahaayeen xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya ma dhicin Muqdisho sanataradii ugu badnaa ayaa ka sii baxay qaarkoodna waa ay ku sugan yihiin iyaga oo loo diiday inay ka dhoofaan garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho arinta dastuurkan dood adag ayaa ka taagan kulamadii la soo dhaafay sababaha ugu weyn ee uu u baaqday waxaa la tilmaamay inay tahay kooram la'aan iyo sanataradii aqalka sare oo 3 meelood laba kamid ah ama 2 meel oo kamid ahba ay xaadiri waayeen fadhiyada qaarkood fadhiyadu waa laga ganaaxay halka kuwa kalena aanan laga ganaaxin laakiin si rasmi ah ay ula safteen maamul goboleedyadooda Puntland iyo Jubbaland sida xildhibaan ama wasiir Buraale oo kol hore isagana kamid ahaa dadka sida adag ugu ololeynayay dastuurka laakiin markii dambe mabdaiisa uu bedelay oo ugu dambeyn uu aaday deegaan doorashadiisa oo ah Puntland waxa uu tilmaamay markii uu halkaasi tagay in waxa ka dhax socda Villa Soomaaliya iyo guddoonka golaha shacabka iyo kan aqalka sare ay yihiin wax baadil ah oo ummadda Soomaaliyeed laga qarinayo Villa Soomaaliyana ay doonayso in dalkan ay xoog ku sii haysato laakiin marna aysan suuragali doonin waa sida uu sheegay sidoo kale waxaa jira in fadhiyadii la soo dhaafay xildhibaanadii laga celiyay oo qaarkood laga ganaaxay qaarkoodna Muqdisho inay ka baxaan laga celiyay ay ku sugan yihiin hoteelada Muqdisho xubno wakiilo ka ahaa Villa Soomaaliya iyo sidoo kale Aadan Madoobe ayaa loo diray xubnaha mucaaradka ah laakiin waa ay diideen inay la kulmaan waxa kamid ahaa wasiirka arrimaha gudaha Cali Xoosh wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Asad Diyaano oo dhammaantood isku dayay inay xaliyaan tabashooyinka ay qabaan xildhibaanadan oo ka sii bixin lahaa garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho laakiin arrimahaasi oo idil oo isbiirsaday ayaana la tilmaamay in xildhibaanadu aysan ugu suuragelin in ay kulan degdeg ah la qaataan oo waliba ay la heshiiyaan Villa Soomaaliya maadaama laga xanibay safarro ay aadi lahaayeen laga xanibay fadhiyadii golaha shacabka laga xanibay marista wadooyinka qaar ee ay sida ay doonaan u mari karin iyaga oo waliba xasaanad xildhibaanimo wata Villa Soomaaliyana la sheegay in arrimahani oo idil ay ka dambayso Axmed Madoobe iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo warbaahinta si toos ah ula hadlay xanibaadahan iyo dhibaatooyinkan markii ay soo bixeen kadib waxay arrintan ku tilmaameen fal afduub ah oo la doonayo in lagu jajuubo guud ahaan xildhibaanada ka soo jeeda labadaasi maamul saacadaha soo aadan waxaa dhacaya kulan gaar ah oo u dhaxeeya Villa Soomaaliya iyo guddoonka labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya haddaba xubnahan cidda u ansixi doonta ilaa iyo hadda lama oga xubno
koonfur galbeed ka soo jeeda gaar ahaan xildhibaanada koonfur galbeed ahna waxa ay si degdeg ah u sheegeen inaysan doonayn inay ka qayb galaan kulankan ama fadhiyadan golaha shacabka iyo kan aqalka sare ee ka dhacaya villa Hargeysa kaas oo ay wada yeelanayaan xildhibaanadan laba dhinac isla sidaas oo kale xildhibaanada koonfur galbeed waxa ay sheegeen inay u heelinayaan saaxiibadooda ka soo jeeda deegaanada Jubbaland iyo Puntland kol hore markii ay dhibaatadu ka taagneyd koonfur galbeedba ay u heeliyeen laakiin hadda ay garab taagan yihiin kulan degdeg ah ayaana la filayaa daqiiqadaha soo aadan in uu dhexmaro xildhibaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya kaas oo ka dhacaya mid ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada caasimadda ah ee Muqdisho oo iyagana si toos ah la filayo inay uga hadlaan arrinta dastuurka isla sidaas oo kale saacadaha soo aadan madaxweynihii hore ee Soomaaliya waana madaxweynihii toddobaad waxa uu martigelin doonaa xildhibaanadii ugu badnaa oo uu waliba la kulmi doono musharax madaxweyne xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa kamid ah ra'iisul wasaarayaal hore Saacid Shirdoon Maxamed Xuseen Roble Xasan Cali Khayre ayaa dhamaantood iyagana ku shirsan isla gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waana golaha mustaqbalka intooda badan xubnahan waxa sidoo kale jira in xildhibaanada qaarkood ee sida adag uga soo horjeestay arrinta wax ka bedelka dastuurka ay si cad uga hadli doonaan in dastuurkaas uusan marna ansax noqon doonin laakiin villa Soomaaliya iyo sidoo kale dhinaca golaha shacabka ay ku dadaalayaan in dastuurkan la meelmariyo ama la ansixiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud horey isaga ayaa afkiisa ka sheegay in 2026 marka la gaaro iyo dabayaaqada 2025 aysan suuragal ahayn in dastuur la bedelo haddii ay noqoto in dastuur la bedelana ay ka dhigan tahay muddo kororsi haddaba madaxweynuhu ma muddo kororsi ayuu u socdaa ama waxaa jira qorshayaal kale oo uu doonayo in uu dalkan ku sii haysto ama kursiga uu ku sii joogo xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaana aad u cakiran marba marka ka sii dambaysa wararka soo baxaya uma roona dhigaha ummadda Soomaaliyeed iyadoo waliba la sheegayo in xaaladda ay ka sii dari karto haddii aanan xal siyaasadeed oo degdeg ah la helin daqiiqadii la soo dhaafay waxaa jiray kulan gaar ah oo dhexmaray ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya James Swan kulan isaga iyo sidoo kale gudoomiye Adamadoobe u dhaxeeyay kaas oo la tilmaamay in dignino lagu siiyay gudoomiyaha iyo xildhibaanada qaarkood ee waliba garabka u ololeynta dastuurkan la meel marinayo waxa sidoo kale la tilmaamay in aanan meelna lagu hubin xildhibaanadii ansixi lahaa dastuurkan sidoo kalena la tilmaamay in wax badan ay doonayeen inay ka hadlaan arrimahan oo idilna ay noqon karaan kuwa haddii la ansixiyo ama la meel mariyo cidda lagu dhaqi lahaa la sugayo madaxweynaha imaan doona gudoonka imaan doona haddii isbedel uu dhaco iyo haddii dalka afgembi uu galaba ay noqon doonto in ummadda Soomaaliyeed isku tashi ay gasho oo guud ahaanba hadda deegaanada Puntland iyo Jubbaland waxa ka socda kulamo gaar ah oo ay arrimahan uga arrinsanayaan dadyugan kala duwan ee dastuurka qaybta ka ah laakiin ugu dambeyn qaarkood laga ganaaxay fadhiyadii xildhibaanada qaar ayaa isweydiinaya xildhibaankii laga ganaaxay labada fadhi haddana Muqdisho jooga doonaya in deegaankiisa uu ku laabto sababta loo celinayo haddii ay jirtaba in la ganaaxay oo ganaaxu uu ahaa mid dhab ah sababta loo celinayo isla sidaas oo kale haddana waxa jira su'aalo kale oo taagan ee ah sabab dawladda federaalka Soomaaliya ay u celinaysaa xildhibaano doonaya in deegaankooda ay dib ugu laabtaan oo wada tashi ay galaan hadiiba mucaaradku la ogol yahay inay wax saxaan arrinta hadda ay isku haystaan golaha mustaqbalka iyo dawladana ay tahay in wax la saxo sabab ay dawladdu u diidan tahay arrimahaas oo idil ayaa jira oo la isweydiinaya maalinta biritada ah ama saacadaha soo aadan kulanka dhacaya ee golaha shacabka yaa imaan doona haddii fadhiyadii kala duwanaa la waayay xildhibaano soo xaadira sidii horey u dhacday ma ciidan ayaa halkaas la keeni doonaa oo suudad u soo gashan doona inay dastuurka ansixiyaan oo la dhihi doona xildhibaanadii golaha shacabka haddii warbaahinta loo diido maalinimada birita waxa ay xildhibaanada qaar sheegeen in dastuurka lagu ansixiyay ciidanka madaxtooyada iyo kan golaha shacabka oo uusan jirin xildhibaan ka qayb galay fadhiyadaas waa sida kol hore qaarkood bogagooda gaarka ah ee Facebook ay ugu qoreen qaarkoodna si toos ah ay warbaahinta ugu sheegeen wixii ku soo kordhay saaxiibayaal arrimaha golaha shacabka arrimaha dastuurka oo waliba dood adag ay ka taagan tahay barnaamijyada wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa idinka ayaana noqon doona dadka ugu horeeya ee xogtan hela haddii aad ilaa markana la soo gaartay igu soo biir saaxiibada la sii wadaag qaybta hoose ee faaladana aragtidiina nagula wadaaga